waa wiilasha ugu caansan ama waa wiilashii ugu dambeeyay ee qaatay caanimadii ugu dambeysay ee heer caalami ah. wiilashan oo u dhashay waddankaasi Kenya oo ay dowladda Qatarna u soo kaxaysatay si ay u noqdaan security-ga wadooyinka ayaa waxay noqdeen kuwa ugu caansan ama dadkii ugu dambeeyay ugu caanimada badnaa ee caanimo heer caalami ah hela. wiilashan waxaa ka mid ah Abubakar Cabbaas oo ah midka ugu saameynta badan ay saameynta ku yeelatay caanimadiisu. wiilkan oo u dhashay waddanka Kenya iyo kuwa kale oo dhigiisa ayaa ku sugan dalka Qatar si ay dadka ugu tilmaamaan goobaha tareenada laga raaco iyo jihooyinka gaar ahaan suuqa lagu magacaabo Suuq Waaqif oo ku yaala gudaha magaalada Doha ee dalka Qatar. Metro Tisway waxay ahayd shaqadiisa waxaana uu ahaa qof taagan wadada barbarkeeda oo dadka u tilmaamaya goobaha isteeshinada ee tareenada. taas ayaana ka dhalatay kadib in ay dadkii bartaan oo ay caan ku noqdaan sidoo kale dad caan sawiraan la soo galaan oo ka mid yahay Burak wiilka lagu magacaabo oo cunto kariya u dhashay waddankaasi Turkiga. sidoo kale dadka caanka ayaa sawiro la soo galaya isagoo caanimadiisa wiilkan ka caan baxday xataa cidiga ka ciyaaraya koobka adduunka oo gudaha ku jira garoomada. waxaana fursad u helay inuu kumanaan kun oo qof ilaa 10 kun oo qof inuu kala hadlo garoon ku yaala magaalada Lusail oo ka tirsan isla magaalada Doha. waa dad u dhashay waddanka Kenya oo ka shaqeynaya koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. dowladda Qatar ayaa security-gooda iyo sidoo kale dadka ka shaqeynaya kala nidaaminta dadka soo booqday ee dalkaasi Qatar ee ka qaybgalaya koobka adduunka kala nidaaminayay ee wadooyinka kala tusayay goobaha tareenada laga raaca tusayay si farxad iyo soo dhaweyn iyo waji furan leh ayayna dadka u qaabilayeen. dhalinyaradan oo iyagu u dhashay waddankaasi Kenya ayaa akhlaaqdooda iyo sidoo kale shaqadooda siday u qabanayaan ay ku dheehan tahay ilbaxnimo iyo fahan dheeriya oo aqli badan u isticmaalayaan meesha markay ay joogaan. run ahaantii dad badan oo Carabeed ayaa shaqadan u baahnaa laakiin dowladda Qatar ayaa ka dooratay oo ka doorbiday inay shaqaaleysiiso dadkan Kenyaanka ah inay qaban karaan hawshan oo ay sideeda uga soo bixi karaan. muuqaalada baraha internetka ku faafay iyo caanimada oo meeshii ugu sareysay gaadhay waxa laga yaabaa inay muuqaaladani ku soo gaadheen iyagoo oo warbaahintuna ay aad uga hadlayso. maxaa yeelay wiilashan Pedro waa waxay caanka ku yihiin ee ay tilmaanta u joogaan ee dowladda Qatar u dooratay. waxay tilmaamayaan dadka meesha tareenada laga raaco iyo meelaha wadooyinka ay u kala baxaan iyo meesha dadku u socdaan si ayna dadku ugu khalkhalin gaar ahaan Suuq Waaqif oo ku yaala magaalada Doha ee dalka Qatar. run ahaantii si degdeg ah ay noloshooda isku bedeshay gaar ahaan wiilkan lagu magacaabo Abubakar Cabbaas oo isagoo muslim ah oo ka soo jeeda waddanka Kenya. caanimadiisa ayaa gaadhay meeshii ugu sareysay isagoo samaystay barta TikTok oo ay doortaba ku soo biireen 10 kun oo qof oo caan baxay taasi oo keentay inay dadku ay markaas isku soo sawiraan oo ay booqdaan meesha uu joogo iyo halka uu ka hagayo. sidoo kale luqadda waddankiisa hooyo ayuu kor u qaaday isagoo marka qaarna ku daraya luqadiisa oo dhagaha ugu ridaya bulshooyinkan faraha badan leh halkan isugu yimid. run ahaantii dowladda Qatar ayaa ku dooratay dadkan u dhashay waddankaasi Kenya hawsha sida hufnaanta leh ay u qabanayaan iyo sida ay uga dooratay Aasiyaankii ama Carabtii kale ama dadyowgii kale sida Ethiopian kale ama Afrikaan kale oo ay Kenya uga soo keensatay inay u qabtaan hawshan u baahan kala nidaaminta ilbaxnimada iyo fahanka iyo aqoonta.